dowladda Soomaaliya fariina aan u diro ehelada Ikraan waxaan ku hormarayaa ehelada Ikraan waxay heeday gabar Soomaaliyeed oo u shaqeynaysa qaranka Soomaaliya gacanka gardaran ayay ku baxday sida la sheegay cid kastay tahay waxaan rabnaa marka inaysan naqanin gabartaas aan qiimaheedii iyo sharafkeedii aan meel looga dhicin oo laga dhigin gabar oo qabiila oo qoys oo gaar ah waa gabar Soomaaliyeed qaran Soomaali u shaqeynaysa dadka Soomaaliyeedna ay kulligeed ka wada tiroonanayaan dhibaatadana ay la wadaagayaan ahalkeeda mustawahaas ay joogto inaan laga hoos marin oo aan gabadha meel looga dhicin ahalkeeda ayaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee la sheegay qaraab ahaan amba qoys ahaan in loo qabsadaan diinteena islaamkana waa ku xaraan urfka Soomaaliyeed wax ku fiican ma ahin qof dimbi oo galo qof qaadaysa ma jirto waa dad abriye ah waa dad Ikraan oo kale xuquuqda ay leedahay leh waxa cusahaya in si degdeg loo sii daayo dhibaatada aan loo geysan arinta oo Ikraan aan laga dhigin arin qoys aan laga dhigin sida waxaan oo qof uu aar waa ficil xun waa ficil jaahili ah waa tii nabiga عليه الصلاه والسلام jaahilida ha laga tago dacuha fa inha muntina taas ma ahayn tii fiicnad ma ahayn taas waxaan leeyahay marka dadkaasi si degdeg ah loo sii daayo cid gacanta ku hayso ha sii deyso iyadoo aan raba inaan dareensiyo qofka muslimka ah qofkii dila qof muslim hadii la dilo xuquuqda uu leeyahay saddex qayb waaye xaqna waxa iska leh Allah oo adoonkiisa la dilay xaqna waxa iska leh qofka la dilay oo naftiisa la gooyay xaqna waxa iska leh qaraabada kan Allah qof martay ah toobo iyo waxa u baahan yahay i'tiraaf iyo toobo iyo in Ilaahay loo laabto oo taxta mashii'a adoo doono ku cafina adoo doonane oo ku ciqaabayo halka oo maartay xaqa oo qaraabadana ama diya la kala siiya ama cafisaysan ama loo qisaasa xaqa adoonka la dilani maxkamadu la leeyahay qofkii dil maalinta qiyaamaha saadaradeed qof muslim ah kascad loo dilay aan u rajayno in Ilaahay naxariistiisa siiyo oo meel khayr ay joogto adigu qofkaas shahiid waaye ha u naartigin qof kale muslim ah ha dilin qof muslim oo la dilo waxay ka weyn tahay Ilaahay agtiisa kacbada oo la dumiyo adduunyada dhamaanteed oo la zuuliyo marka saas daraadeeda qoftii muslima dila kascad u dila diintaynu aad u goodisay xataa tooba malay masamaha la isku khilaafay culimada oo xabrul umma xabru hada umma sidina Abdullah bin Abbas wuxuu leeyahay xataa qofkaas tooba malay laakiin jumhuur culimo waxay leedahay tooba uu leeyahay oo toobadu waa u furan tahay saadaradeeda Ilaahayna wuxuu ugu goodinayaa oo man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نبي وحور حتى سوات كينايو حدي لو ان على السماوات واهل الارض اشتركوا على دم امرئ مسلم لا اكبهم الله جميعا على النار ولا يبالي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدي ددك سمده انت جوجته مخلوق يا ارض انت جوجته قف مسلم اي غردره يدل لهايين اي شركه كو نقل لهايين dhamaantood ilaahay naar buu ku daadi lahay man u aabiyay waxay qatl المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا نبي ملك عليه الصلاه والسلام مؤمنك oo la dilo adduunyada dhan oo zuusha ilaa agtiisa waa koonti qofka muslimka qof saad qof u dilan dadka dhamaantiis asoo dila ayuu lamid yahay min ajli dhalika katabna ala bani israa'iil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nas jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nas jami'a ikhwata al-'izza waxaan leeyahay marka dadka abriyada ah martay loo qabtay ama dhibaatada ama loo soo qafaashay sida la sheegayo oo social media iyo dhamaan baraha bulshada aan ku arko hayno Ikraan loo soo qabsaday qabiilnimo loo qabsaday hal sii daayo xuquuqdooda iyo sharafkooda yaa meel looga dhicin dadka Ikraamna waxa leena sabar iyo iimaan Alle siiyo waxaan rabaa in baaq halkan u diro makalato dawladda Soomaaliya mas'uuliyad ayaa saaran san ognaha kulligayna oo dastuuri ah diini ah waajib ah oo ah ilaalinta dadka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda sharafkooda cirdigooda waxaan rabnaa in dawladda Soomaaliya cadayn waafi ah lagu kalsoonaa karo in la siiyo ehelada Ikraan oo hadda aan leeyahay kaas wada Soomaaliya dhamaantood aan leeyahay waa in la siiyo cadayn cad waa in cadaalad ay heshaa Ikraan ahalka Ikraan waa inuu cadaalad helaa dawladda madaxweynaha wasaaraha waxaan leeyahay cid kasta oo lagu tuhmayo kiiska Ikraan cid kasta oo shaqo ku leh waa in cadaalada ay hortagaan cadaaladana la horgeeyaa mas'uuliyadda dawladda taas baan leeyahay hay'adaha amniga taas baan leeyahay madaxda qaranka taas baan leeyahay cadaalada dalka deeqada dadka Soomaaliya iyo cadaalad
baadidaynu waa cadaalad dantaynu noo cadaaladday ku jirtaa waa xuquuq islaami ah waa xuquuq insaani ah waa xuquuq oo maartay dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin cadaalad inay helaan dawladda ayaan waxaan ka rabnaa in kiiskaas laga cadaalad falo si waadixa oo si ka shamsi ah oo maalin ah baaritaanka iyo gungaaridaba in laga dhigo waa inaan qof aan shaqo ku lahayn aan lagu dulmin qofkii shaqada ku lahayn waa inuu cadaalad dhidhimiyaa bartaba kasta iyo mas'uuliyad kasta oo leeyahay qofka sharciga ayaa ka sareeya taas ayaan leeyahay anigu ka culum ahaan waxa la rooraayo oo meelaha dhan wareegaya social media kulli waxaan leenahay waxaan aragnaa fitnada ya arinta laga dhigin arin fitan ah oo dadka Soomaaliyeed dhibaato ku noqda oo diinta islaamka dhibaato ku ah oo cali ilaahay ka dhalato yayna naqanina lana mas'uuliyadda marka dawladda marka waxaan ugu baaqaynaa hadaan Soomaaliyeedna aan Madiina waxaa linka rabaa arintaasi si dhab baaris xaqiiqo cadaalad ku salaysan baaris xaqiiqo dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan in ka codsahaynaa madaxda dalka tihiin waa maasantihiin Allah idin waafajiyan ilaahay markale sawir iimaan Allah naga siiyo ikraan Allahna u naxariisto dhamaan intii umada Soomaaliyeed ka geeriyootay walaasheen ikraan ay kamid tahay jannatu firdaws Allah geeyo